بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa maanta cashir muhiim ah dad fara badan ay naga codsadeen insha Allah. cashirkan wixii tacliiq ah commentiga hoose noogu soo reebo, wixii su'aalo insha Allah تعالى waan idinkaga soo jawaabi doonaa بإذن الباري. عشر وعشر مهمة الدال على خير كفاعله قفك خير كضخ سيتو سينا وأسوسه بعمل لسي شرقلي ولا ليهن لسي وداغو. عشر كان مانت إن شاء الله تعالى كان كوس وضو بدونه ومهم كيه وحاوي محاسبه صوابها كان محاوي تماها إني داتان محا كانوا maxay timaha u daataan. waa mowduuc balaaran, waa mowduuc weyn, laakiin aan dhex galno wax ka midana aan tataabano. haddii aan halkan aan maanta dhahno waan ka hadlaynaa barnaamijkaas waqti fara badan ayuu qaadanayaa, laakiin qaybo ka mid ah aan ka hadalno. xagga dumarka oo kale aad ay uga cabtaan daadashada timaha ama tima yaraan, gaar ahaan cunsurka naga Soomaaliga ah ama dadka naga Soomaaliyeed kadalika aad ay uga sheegtaan wax Soomaali ahaanta keenayo iyo wax keenayo xaalado jiro. dumarka si gaar ahaan haddaan oga hadlo waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah inay timahooda daataan waxyaalaha saliidaha kiimikada leh oo kiimikada ku badan tahay shirkadaha soo saarayaan oo lasoo hagaajiyey oo qofta marsato. saliidahaas waxay hoos u dhigayaan ama baabi'inayaan fitamiinada, waxayna sharayaan meelaha mataqaanaa dowdolaalada. waa inuu ay ka fogaato gabadha saliidahaas, waa in ay ka fogaato shaambooyinka kiimikada leh, waa inay raadsato waxyaalaha dabiiciga ah, saliidaha dabiiciga ah. xilligan hadda la joogo oo wax fara badan ay soo baxeen, saliidda looska oo kale ama saytuunka waxay ka mid yihiin saliidaha aadka iyo aadka u fiican. zaytul budur saliida dhaho oo iyadana aad u fiican ayaa jirto. Soomaalida ayagana waxyaalaha ay ugu badan yihiin waxaa ka mid ah Soomaalida waa dad cuno bariiska, baastada, cuntooyinkaas ay cunaan oo si joogto u cunaan. waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga ah in uu ku quraacdo canjeero, bariis uu ku qadeeyo, habeenkana uu ku casheeyo baasto. kulli waa cuntooyin bur ka soo bisan. ruuxa waxaa loo baahan yahay raashinkiisa inuu bedelo. caanaha inuu cabo. annaga ma cuno, laakiin malayga oo kale aad ayuu u fiican yahay, waxyaalaha aadka u fiican ayuu ku jiraa. digirta iyo qudaarta cagaaran ayagana aad iyo aad bay u fiican yihiin. waxyaalaha kale oo aad u saacideeyo fitamiinada aadka u saacideeyo ayonka qofka inuu joogo iyo mataqaanaa iyo macaadintiisa dhan. waxyaalaha zinkiga la dhaho ayonka inay qofka u joogaan. fitamiinada muhiimka ah oo qofka muhiimka u ah, inkastoo fitamiinada dhan ay muhiim yihiin, qofka timihiisa inay joogaan 3 fitamiin ayaa mataqaanaa asaas u ah. 3 fitamiin ayaa muhiim u ah. fitamiin walbana wuxuu leeyahay qasaa'is gooni ah. haddii fitamiinadaas laga soo gudbo intii aan sheegin ka hor, waxaa jiro wax la dhaho oo qofka mataqaanaa muhiim u ah. qofkan macnaha wuxuu leeyahay timo qurxan. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiis saxiix ah
استعينوا على إنجاح أموركم بالكتمان فإنه لذي نعمة محسود. إله سبحانه وتعالى وحوكسي تيما قرحان نمعو برواخو إله كسي وأنا تقرسته وإن أي ما مضى قبل أنت يرتهي ونجيريس وأنا أغلى قبين اعتماه له هجاجين آيا تدفر بدن يا لوسي دين آيا العين حق بالنبي عليه أيضا إيش أصلا إني كانتو ومعقول إيش أولي فتيمينا فربضا هي لك عيسى إيش هذا أركيسان معه حنون جرم معه لكن قفكي وحكود عاي فتيمينا ذا أياك بابا آيو قفكي وحكود عاي وحلا له إن وقفكي ونغض قف سئو قبصان إيش وحيالا كيات ودراوي حديث صحيح وحوليه هاي رتيغ وحي جلسا دري نيكنا وحي جلسا قبري الحوياك وحا وحوق بدن رتيغ بلي آدم كان نيكا وحوق بدن وأتكسان كران ساس درادي وحي إيش الدين يسمره مركا وحاوي إنو قفك قفت الدمرت إنو يودي إلى لسو يودي وين عيد إسرائيلسو تيميه إذا عيد هجاجستو ما تقعناي سالونيدا iyo meelaha ma taqaanay in madaxeeda ku feedin xataa qofta dumartay oo ma taqaanay ku hagaajinayso meelo jirkaada in ay ka aragto aan lagu talagelin ay jirto marka qofka haduu saas ku ilaaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku raali geliyo jirkeeda ilaalinayso ayaa ma taqaanay gabadha ay timaheeda qarsato ilaalsato ayada hagaagsato wax yar baa mid kale qofka timihiisa asaga hagaagsado oo ma taqaanay ajir ayuu ka helayaa fitamiinada aan soo deego fitamiinada muhiim jiddan ka ah waxa kamid ah fitamiin A waxa kamid ah fitamiinada muhiim ka ah fitamiin B3 qofku inuu ku dadaalo digirta ما تقعناي وحيرها ما تقعناي بروتين كلا هلا بروتين هذا سنو كود دالوية قف قوينو كود دالو عجارك حيرها عجارك كذلك هدو هلي كرو هليكم الله يسقاسة إنه كود دالو روح هو إنه كود دالو وحيرها لو يقعنو فيتامين هذا إنه جرك يسا وسكر ديو هدي وجرك عافيمات قبه كذلك تمهنا عفمات بقمان دماتك تمها أما بعتانك تمها إصاد ضنايان وحيالها أصابته وحاكمده إن المتق أنا جرك هذا وحنون كجره ليك هذا وكبدنيها كوليسترول الدم وحراره كوليسترول إنه كبدني جرك هذا كوليسترول ليك إنه كبدني إن ألعبته بيكو فلان بيئات يادو بدن إن ألعبته إن أدعنته قدارته فيتامين سي أو كل هذا اللي هو بهني لين معانته أدميرته فيتامين صدح هذا اللي هو بهني وفيتامين سي سليدها على المرسانة يسوع وإن نغضان زيتون زيت القروع زيت الجرير زيت اللوز زيت السمسم سليدها صلان وحيلات ديالمايان إنay تيما حداتان وحيالها مهم جدا كإيه وحاويه قفك وإنه صوبيه جمعسي أما الرياضة وحلو يقانو إنه جمعسي قفك إنه أرد صوبيه عنتا أسكا عنيسو أسكا سيحاتو لما بهنو قفك وإنه عبو بيكو فلان بيعاد بيكو فلان إنه استعماله وين واحد لين يراد تاعي واحد بدن بدعون فرتا واحد لين يراد لماذا عنتو بركاد ويناته يلو بحسنيسا لين يراد ولي قربها جوجتو يا لين يراد meelaha qaarkood joogo waxaad ku arkaysaa cuntada isgargaarsiinayaan habeenkii ayay ma taqaanay ku daahayaan saqdax ku gaarayaan social media ama qadadka subaxin ilaa 6 saac muqraa canayo
marka hadduu halaabo nidaamkaada cunto ayadana waxa weeye waa qatar weyn. geedaha mataqaanaa aadkii aadka u wanaagsan oo mataqaanaa ka qayb qaato si shaahan u cab ama si mataqaanaa u isticmaal. waxaa ka mid ah geedka la dhaho shamarka, geedka shamarka la dhaho oo qaarna madax ku dhaqato qaarna cabto. asaga mataqaanaa dheefshiidada ayuu furayaa, dheefshiidada ayuu u fiican yahay. geedkaasna asagana waa geed muhiim jiddan weeyo oo aad u fiican. wixii aan saxnay famin allah, wixii aan saxnay ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan. wixii aan qaladnayna waxaa waye naftanada. adaala ala khayrka faacili walaalihii u shishargalaya aad baad u mahadsantihiin. jazakum allahu khayr aljaza.